lacagtu waad ku iibsan kartaa saacad laakiin kuma iibsan kartid waqti. lacagtu waad ku iibsan kartaa sariir laakiin kuma iibsan kartid hurdo. lacagtu waad ku iibsan kartaa cunto laakiin kuma iibsan kartid abateed. lacagtu waad ku iibsan kartaa daawo laakiin kuma iibsan kartid caafimaad. lacagtu waad ku iibsan kartaa guri laakiin kuma iibsan kartid nolol. tani waa dhibaatada aan wada leenahay, waxaana jira waxyaabo badan aanan ku iibsan karin lacagta. ha rumaysan wax kaste oo aad maqashid, hana wada isticmaalin waxaad heesato ee xoogaa keedso. hana seexan hurdo badan oo ku seejisa dantaada. casharka aan rabo inaan maanta ka hadlo waxay tahay micno ma lahan sida aad u eg tahay. waxaad noqon kartaa qof dheer ama qof gaaban, ama qof cayilaan ama qof caata ah. waxaad noqon kartaa qof foolxumo badan ama qof qurux badan. sidoo kale waxaad noqon kartaa qof madow ama qof caddaan ah, ama qof taajir ah ama qof faqiir ah. laakiin waxyaabahan aan soo sheegay oo dhan micno ma lahan. waxaa micno leh oo keliya inaad tahay qof qalbi wanaagsan, diin iyo dabeecad wanaagsanna leh. qof walba oo aamusan ma ahan inuusan jawaabi karin. waxaa jira qof u aamusan si uusan u dhaawicin qof kale. waxaa jira qof u aamusan xanuun dartiis. hadalkiisa wuxuu ku kordhiyaa dadka asaga jecel xanuun, sidoo kale wuu la xanuunsadaa. muuqaalkan halkan ayuu ku dhammaaday. waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay. haddii aad muuqaalkan ka heshay, ha ilaabin inaad ku soo biirto kanaalka Faraxlow adigoo taabanaya qoraalka gaduudan ee subscribe. sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. muuqaalka xiga waxaan noo rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xisnay inaan soo laabano. mac salaama.